ururka bulshada bariga Afrika waa suuq dadkiisu ay yihiin 300 oo milyan oo dad ah kaasoo ka soo bilaabma Atlantic Ocean kuna dhamaada Indian Ocean ilaa Red Sea. Haddaba sidee ayaa loo aasaasay ururka bariga bulshada Afrika? Waa imisa tirada wadamada lagu aasaasay iyo hadda waqtigan la joogo tirada guud ee uu yahay ururka bariga bulshada bariga Afrika. Si aad u daawato daawade warbixintan oo dhameystiran nagu soo biir siina share garee muuqaalkan. Uganda, Tanzania iyo Kenya waa aasaasyaasha ururkani. Rwanda iyo Burundi ayaa iyaguna ku soo biiray sanadkii 2007. Koonfurta Suudaan oo iyaduna ku soo biirtay bishii September sanadkii 2016. Congo iyaduna waxay ku soo biirtay sanadkii 2022. Ugu dambeyn Soomaaliya oo ilaa iyo sanadkii 2012 dadaal dheer ugu jirtay sidii ugu mid noqon lahayd ururkani ayaa iyaduna ku soo biirtay 24 bishan November sanadkan 2023. Haddaba maxay ahaayeen marxaladihii uu soo maray bariga bulshada Afrika? Bariga bulshada Afrika oo ku guuleystay ururka adeega guud ee bariga Afrika December 1 sanadkii 1967. waxaa heshiiska iskaashiga bariga Afrika oo ay saxiixeen June 1967 madaxweynayaasha Kenya, Tanzania iyo Uganda. Ururkani ayaa waxaa la kala diray 1977. waxay ku guuldareysteen inay ku heshiiyaan miisaaniyadda adeegyada dhaqaalaha guud. Kenya ayaa diiday inay bixiso wax dhaqaale ah oo lagu maalgeliyo miisaaniyadda sanadkii 1977 ilaa 1978 waxayna ku dhawaaqday inay ka baxday kadib markii lagu guuldareystay adeegyada maaliyadda guud. Ururka bariga bartamaha Afrika waxaa la joojiyay inay shaqeyso Luulyo 1977. heshiiskii aasaaska bulshada bariga Afrika ayaa dib loo soo cusbooneysiiyay sanadkii 1993 waxaana bilowday madaxweynayaasha kale ah Daniel Arap Moi oo dalka Kenya madaxweyne ka ahaa, madaxweynihii dalka Tanzania Ali Hassan Mwinyi iyo madaxweynihii dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni. waxaa dib loogu saxiixay Arusha 30 November sanadkii 1999. heshiisku wuxuu dhaqan galay 7 Luulyo sanadkii 2000 kadib markii la soo gabagabeeyay habraaca ansixinta iyo keedinta qalabka ansixinta xogayaha guud dhammaan 3 wadan ee shuraakada ah. Haddaba daawade maxay kaaga dhigan tahay in ururka bulshada bariga Afrika ee Soomaaliya ku biirtay? Qaybta hoose inoogu reeb mahadsan.